saddex bay ku dooran doonaan baarlamaanka cusub madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. kow, awoodsiinta go'aamadooda. labo, mushaarsiintooda. saddex, la shaqayn buuxdo. saddexda mucaarad ayaa uu fududeeyey in uu doorashadu dib ugu soo laabto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. kow, waxqabad daridooda. labo, in aysan haysan lacag ay ku tartamaan. saddex, in ay qaaday qabyaalad xumi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشا قالقة وقت كستا إذين تهي وناكسن أوغعن ومركل إي فيديو كلا تآذ وقرح بدن. فضلا هذا النقوع عصبتها بيج كان فلوده والله قري سين الشري قري برامج كان هدوك سوق قارو وبرامج آدي وحيص بدن كاسو أنا قلت لقلني مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحقبت كيسات كوبالارناي واللي بأن رجين إنه مركلة تدبنا وقصوا لابد دونا qodobka ugu horeeyaan soo qaban doon intaan guda galin barnaamijkan waa barnaamij tixanaha ah oo noo socon doono saddexleedii ugu qiimaha badneed ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo intuu xilka joogay iyo waqtiyada soo socoto sidoo wax u qaban doono. saddexda ugu horeysa kow waxaan ka soo qaban doonaa saddexda mucaarad ayaa uu fududeeyey in uu doorashadu dib ugu soo laabto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. kow, waxqabad daridooda. labo, in aysan haysan lacag ay ku tartamaan. saddex, in ay qaaday qabyaalad xumi. marka aan ku leeyahay waxqabad daridooda sida in ay ka shaqeeyaan in ay dalka burburiyaan iyo shisheeye kalkaalnimadooda. labo, in aysan haysan lacag ay ku tartamaan. marka aan ku leeyahay waa in sida in ay bixiyaan lacagta ay ku laaluushaan xubnaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. ilaan raggu waxtar ma lahane laaluush ayaa soo saaro. qof kasta oo waxtar leh oo dalka wax u tarane waxaa lagu gartaa laaluush ma bixiyo, wuxuu fiiriyaa danaha dadkiisa iyo dalkiisa. weliba baarlamaanka waxaa lagu kasbadaa maxaad dadka u qaban kartaa, maxay tahay dadka waxaad u hayso. sida taa ayaa lagu kasbadaa mooye in xatooyo qarannimo la suubiyo ma ahan mid lagu kasbado in la noqdo xubinta ugu sareyso ee dalka Soomaaliya. marka aan ku leeyahay qodobka ugu dambeeyo in ay qaaday qabyaalad xumi sida in ay ka shaqeeyaan isku dirka beelaha dega dalka Soomaaliya. inkastoo isu u suurtagelin laakiin qayb ka mid ah waa ay kaceen oo waxaa lagu kiciyey qaab siyaasadeysan, balse markii dambe ayay fahmeen in aysan dan ugu jirin balse ka leexdeen wadadii saxneed. qodobka labaad, saddex baa u sahlayso in uu doorashada mar kale dib ugu soo laabto ama ugu guuleysto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo doorashada. kow, ka shaqayntii bulsho nadiif ah. labo, ka shaqayntii xiriiro caalami ah. saddex, soo saaristii jiil wax bartay. kow, ka shaqayntii bulsho nadiif ah marka aan ku leeyahay waa sida in bulsho la kulmiyo laga dhageysto fikirkooda iyo ra'yiga ay dowladda ka qabaan, weliba ay ku soo kordhiyaan fikirka ay dowladda aaminsan tahay fikrad ka duwan. taas ayaa dhalinayso in doorashada oo mar kale dib ugu soo laabto weliba ay doortaan bulshadii oo ka soo dhaxbaxay. sida taa marka aan ku leeyahay wuxuu sidoo kaleeto oo fursad siiyey dhalintii Soomaaliyeed kuwaasoo inta wax bartay meel ay shaqo u aadaan inta waayeen weliba shaqo markay u doonteen ee weliba ka heleen waxbarashadoodana soo bandhigay weliba la wada qaatay dhammaan inta ugu badneed. inta kale laga tagana nasiibkooda ayaa u saacidi waa, laakiin inta la qaatay weliba waa lagu guuleystay waxbarashadooda waana la xaqiijiyey. qodobka xiga marka aan ku leeyahay ka shaqayntii xiriiro caalami ah sida dunida oo u riyaaqday habka ay dowladda federaalka Soomaaliya u shaqaynaysay ayaa ka dhigayso in mar kale doorashada uu dib ugu soo laabto. soo saaristii dhalin ama jiil wax bartay. marka aan ku leeyahay jiil wax bartane waa jiil Soomaali waxay tiri jiilba jiilka intuu midka ka dambeeyo ayuu ka wanaagsan yahay, balse jiilka hadda jiro waa jiil teknolojiyada adduunka caalamiga la jaan qaaday. saasoo ay tahay waxay bedeleen jiilkii ka horeeyay ee 1990gii iyo 1980gii ahay ayay waxay ku bedeleen maanta la joogo jiil teknolojiyada caalamiga ah la socdo lana jaan qaadi karo. sidoo kaleeto waxay bedeleen saraakiil hore lagu bedelay saraakiisha cusub ay yihiin dad wax bartay lana soo baray laguna soo baray lacagta dowladda federaalka ee Soomaaliya.
waxaana ugu dambeysay 1990kii in dowlad lacag ee leedahay ama waxbarasho ee leedahay lagu soo saaro dhalin waxbaratay oo waliba lagu bedelo generaalo magac weyn dalka Soomaaliya ku leh waliba u soo halgamay qodobka ugu dambeeya waa saddex bay ku dooran doonaan baarlamaanka cusub madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kow awoodsiinta go'aamadooda labo mushaarsiintooda saddex la shaqayn buuxdo kow awoodsiinta go'aamadooda marka aan ku leeyahay waa sida in ay keeni karaan mooshin ka dhan ah saddexda xil ee ugu sareyso dalka Soomaaliya kow madaxweynaha labo ra'iisul wasaaraha saddex qodobka ugu dambeeya waa gudoomiyaha baarlamaanka sidaad u aragteen cid kastoo waajibaadkeeda guda weyso xilka waa laga qaaday waliba mooshin ka dhan ayaa laga keenay taas ayaa ka dhigayso in baarlamaanka in mar kale dib u soo doortaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobka xiga wuxuu noqon doonaa mushaarsiintooda inta ay xilka kursiga ay ku fadhiyaan uguna fadhiyaan shacabkii soo doortay mushaarkoodii waa mid u saxiixan ee dowladdan u saxiixday hal senti aan laga jareenin hal maalin dib ay soo dhici doonin qodobka ugu dambeeyo wuxuu noqon doonaa la shaqayn buuxda ee la shaqeeyay raggii xilka hayay maantana jooga wali ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo uu la shaqeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas ayaa ka dhigayso in ay mar kale dib u soo doortaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaanka cusub fadlan fiidiyogan si share garay si aan u soo badino fiidiyo kale to aad iyo aad u xiiso badan haddii uu fiidiyoon ku xiiso galiyeen fadlan like garay sina share garay commentiga hoos noogu reeb fikradaada ah